السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawaneysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyadeena waa habeenimo Arbaca oo Khamiis ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 9 bisha Juulaay sanadka 2025. haddaba waan hubaa inaad si weyn uga bogateen macluumaadkii iyo wararkii aynu ku soo gudbinay barnaamijkeennii galabnimo iyo kii subaxnimo inta aan daawadna waxaan rajaynayaa inay iyaguna daawadaan macluumaadka aadka u xiisaha badan. haddaba caawa barnaamijka qodobada aan idinkugu soo gudbinayno waxaa ka mid ah Al-Jazeera hadda oo aan idinla hadlayo waxay ka hadlaysaa weerarkii galabta aynu barnaamijkeenna kaga sheekaynay ee markaa dhacay wixii ka soo baxay askartii la qabtay ee haddana sida dirqiga ah loo wafakatay nimankii muxuu ahaa Al-Qassam oo maartay weerar ka qaaday. haddaba sheeko la yaab leh oo dhacday Gaza, dagaalkii galabta ka dhacay askar lagu qabtay haddana si kale u baxsaday. sidee u baxsadeen? maxaa dhacay? haddaba sheeko la yaab leh arrinka laga qoray waan idin hayaa. waxaa sidoo kale aan barnaamijka kugu soo gudbin doonaa Qatar, Mareykanka iyo Israa'iil oo kulan ku qaatay aqalka cad gudihiisa. waxaana la rajaynayaa in siday tahay loo la fakurayo heshiis laga gaaro dagaalka Gaza. haddaba halkee xaaladdu maraysa iyaduna wararkii ugu dambeeyaan idin hayaa. qoysaska dadka eheladooda lagu haysto Gaza ayaa iyaguna aqalka cad kulan ku qaadanaya. mas-uuliyiin Mareykan ay halkaa kula kulmi doonaan ka hor inta aanay la kulmin Netanyahu oo u balansan. haddaba waan idin hayaa iyo warbixino kale wixii warar soo kordhay intaan ku jirnana waan idin la socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay mar kale meel kastoo aad joogtaan barnaamijkeena habeenimo aynu ku jirnaa. waxaa noo soo socda dagaalkii maanta dhacay askarigii lagu qabtay yahuudiga ahaa iyo sida ay u soo kaxaysan waayeen muqaawamada. wixii meesha ka dhacay sheeko la yaab laan idin hayaa. laakiin marka hore waxaan ku hormaraynaa wadaxaajoodkii oo warar cusub ay kasoo kordheen. haddaba heshiis ayaa soo dhow ayaa la leeyahay ku saabsan xaaladda Gaza. ilaahu dadka reer Gaza heshiis iyo nabadgelyo markaa dhibaato aan ku ahayn noloshooda iyo maaragtay maamulkooda iyo in maaragtay ilaahay uu dowladnimo siiyo intaa baan ugu ducaynaynaa. marka laakiin rajadu intay gaarsiisan tahay heshiiska la sheegayaa muxuu yahay inuu soo dhadhow yahay. heshiisaa la gaaray maaha, xogaa waa aadaa la isugu soo jiijiidayaa la leeyahay. haddaba wararkii ugu dambeeyay marka aan idin tuso. haddaba Al-Jazeera waxay soo xiganaysaa joornaalka la yiraahdo Axios ee ka soo baxa dalka Mareykanka kaasoo daboolka ka qaaday in la filan karo heshiis goordhow in la gaaro. haddaba mowqica la yiraahdo Axios ee dalka Mareykanka laga leeyahay wuxuu soo xiganayaa mas-uuliyiin waaweyn oo Mareykan ah. wuxuu sheegay in Mareykanka mas-uuliyiin ka tirsan iyo Israa'iil iyo Qatar ay wada hadallo sir ah ku yeesheen aqalka cad. haddaba wadahadalladaas waxaa diiradda lagu saarayay khilaafaadka asaasiga ah ee laysku mari la'yahay ee hortaagan heshiis xabad joojina iyo nabadgelyo in laga dhaliyo Gaza. ergeyga Witkoff ayaa wuxuu la kulmay mas-uuliyiinta Qatar heerkoodu sarreeyo ama mas-uuliyiin ka socday Qatar oo rag waaweyn ah. waxaa sidoo kale iyaguna kulanka joogay ninka la yiraahdo Ron Dermer oo ah la taliyaha sare ee Netanyahu. haddaba kulankan dhex maray Mareykanka, Qatar iyo Israa'iil waxaa diiradda lagu saaray qaabka iyo sida ciidamada Israa'iil uga baxayaan Gaza iyo sida xabad joojinta loo hirgelinayo. Witkoff iyo mas-uuliyiinta Qatar waxay caddeeyeen ninka la yiraahdo Dermer khariidada la soo bandhigay Israa'iil ay keentay in uu yahay mid aan la aqbali karin taasoo dhibaato ku noqonaysa wadaxaajoodka. haddaba arrinkii marka waxaa leeyahay si dhab ah ayaa Mareykanku hadda arrinka ugu jira sidii loo dhammayn lahaa dagaalka Gaza. Qatar iyo waxa oo dhan waxay isugu tageen aqalka cad ayaa la joogaa la leeyahay. marka joornaalkan Axios la leeyahay waa joornaal xog fara badan hela. marka wuxuu leeyahay wada hadallo sir ah oo qarsoodi ah ayaa dhex maray saddexda dhinac. White House-ka ayana ka dhaceen hadallada warbixinadaasu oo aqalka cad ayay ka dhaceen. marka waa jilbaal la soo aastay.
sidan waxba ma idiin shaqaynayaan, wada hadal ma aha, nabad hala keeno, idinkoon ka bixin meesha, waxa meesha ka dhacay male. xamaas arrinteeda meelaa la saarayaa, xamaas inaysan sii maamulin waa ka baqaysaan, xalaa loo helayaa adigu inaa ka baxdaan. marka ninkii wada hadallada qaabilsanaa wuxuu yidhi waxaan annaga culays nagu ah isbahaysiga dowladnimada aan ku jirno. ninka Netanyahu culayska waxaa haysta niman waxaa ku dhegan dowladdiisa sheer kula ah, haddii waxa ay rabaan uu ka leexdo dhibaataa dhacaysa, dowladdu waa naga burburaysaa, see yeelaynaa. marka xaaladdu marka waxaa leeyahay aadaa marka baasha loo lafagurayaa, aqalka caday baashu marka ka socotaa. dhankii kalena dooxana wada hadaladii way socdaan, laakiin meeshii weyneedaba la isugu tegay oo la leeyahay qadarna waftiyaa ka socda, nimankii israa'iiliyiinta ah, maraykankii, halkaasaa marka dhagaha marka la isaga garaacaya. qatar waxay matalaysaa nimankan xamaasa oo iyada wadankeeda jooga, oo iyagu markaa xiriirkooda ay qaabilsan tahay. marka qodobka halkaasaan kaga gudbaynaa. qodobka labaad ee barnaamijka, galabta barnaamijkayga waxaan ku sheegay in dagaallo culus ay dhaceen, dhagaha laga garaacay nimankii, siday tahay nagta looga saaray. waxaan idiin sheegay oo kale in warbixinada faahfaahintoodu ay soo bixi doonaan. faahfaahintii way soo baxday. askari saas loo hayo ayaa fakaday maanta. sidoo ku baxsaday warbixintaan idiin galaya. waa tahay telefishinka aljazeera wuxuu qorayaa, wuxuu leeyahay alqasaam waxay sheegtay iskuday askari inay soo qabato maantay oo ay soo xirato weerarkii gaadmada ahaa ee ay qaadeen ee Khan Yunis ka dhacay ayaa ka fashilmay. iskudaygii wuu fashilmay. siduu marka muxuu ku dhammaaday iskudaygu? haddaba kataabul qasaam garabka militariga xamaas waxay sheegayaan maantoo Arbaca ah in iskuday dagaalyahankooda ay ku doonayeen inay ku soo qabsadaan askari ciidanka gumaystaha ka tirsan weerarkii gaadmada ahaa ee ka dhacay bariga magaalada Khan Yunis la yiraahdo ee ku taala koonfurta marinka Gaza. haddaba al-Qassam bayaan ay soo saareen ayay waxay ku sheegeen dagaalyahanadoodu inay u suuro gashay inay gacanta ku dhigaan askariga, laakiin waxaa la sheegay in askariga sababo jiray aawadeed xaaladda oo aada u xumayd ay hubkii ka qaateen iyo wixii uu watay, isagana meesha ay kaga takhaluseen. macnaha fursad ay ku kaxaystaan ma aysan haysan. waxaana la sheegay inay sidoo kale gubeen taangiga la yidhaahdo Merkava iyagoo isticmaalay gantaalka garabka laga gano ee la yidhaahdo Al-Yaasiin 105. waay marka waxaa soo jeedaa askariga waa qabanay dheh. askariga marka in la soo kaxeeyo Soomaa jaaniska nolol diiday dheh. diyaarado iyo dhul wixii jiray way isku yimaadeen. xal kale maana haysanay yiraahdeen, wixii qoray iyo wixii hub uu watay iyo wixii aalada uu watay aan ka qaadanay, isagana halkaas ku cunay yiraahdeen. waa ka takhalusnay, markaas ka soo qaadanay wixii uu watay, marka uu naga baxsaday. laakiin waa tii Abu Ubayda shalay war uu qoraal uu soo saaray uu sheegay maalmaha soo socda weerarada gaadmada waa xoojin doonaa, iyagoo noolna waa soo qaban doonaa. marka maanta noolkii waaba la qabtay, laakiin sibay ku dhacday oo la leeyahay qaab uu ku baxsaday, meel la geeyaa la waayay, baashii adkaatay. marka waxay yiraahdeen laakiin ku hanjabeen maalmaha soo socda kuwa badan oo saf ku jira waa arki doontaan oo aan soo qabanay yiraahdeen. sheekadu marka aad ay u kululaatay, nimankii marka waxaa leeyahay way jabeen. dagaalkii gudaha ka socday nimankii waa ku jabeen. nimankii xamaasa afarta dhinac ay kaga imanayaan, nagtay ka saarayaan, waxay haystaan ka furanayaan. way yaaban yihiin nimankii marka afkiya kala tagaa la leeyahay. xaalka gudahana halkaas ayuu marayaa. waayahay marka warbixin ayaa waxaa soo saaray goor dhaweyd joornaalada Israa'iil kuwa ugu afka dheer. tiray sheegeen ay leeyihiin tiradaas ayaa askarta ka dhimatay, laakiin dood gudahooda ayaa haddana taagan oo leeyahay tiradaasu sax maaha, tiradaas way ka badan tahay. maalin walba interneta lagu hayo haddii la isku xisaabiyo ma intaana ma dhici kartile. doodaasaa socota. marka aan idin tuso tirada la yiraahdo Haaretz waxay sheegaysaa askarta inay qirteen 62 ciidankooda in la dilay bilowgii sanadkan marka laga soo bilaabo sheekada.
jornaalka Haaretz la leeyahay wuxuu yiri 62 askari ay sheegteen ciidanka Israa'iiliyiinta in Gaza looga dilay ilaa bilowgii sanadkan. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu hadda la kulmaya qoysaska waxaana la sugayaa jawaabta uu ka bixin doono su'aalaha noocaas ah marka la weydiiyo. marka waxa leeyahay ninkii waqtiga horta si dheeraysanaa Netanyahu waqtiga Mareykanka uu joogo ilaa dabayaaqada toddobaadkan ayaan gaarsiinaa saasay leeyihiin warbaahinta. marka waxa leeyahay 60 iyo xoogaa ma dhici karto 60 iyo xoogaa suuragal ma nooka waa baabeen maalmahan kaliya saddexdan maalmood ah dhowr iyo 20 laga sii maraalay dad qabaan fikirkaas. marka sheekadu marka halkaas ay maraysaa xaalku marka halkaas uu maraya. haddaba marka qadar xayisiisa kadib waxaanu u gudbi doonaa warbixino cusub oo iyaguna wararkii ugu dambeeyay. kulanti wanaagsan markana asxaabay meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan waa habeennimo Arbaca Khamiis ay soo galayso qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu ku jirnaa. haddaba qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa qaar ka mid ah qoysaska dadkooda lagu haysto Gaza ayaa waxay ku sugan yihiin Mareykanka. waxay maalmahan oo dhan codsanayeen in aqalka cad lagu qaabilo si ay uga codsadaan maamulka Mareykanka inuu arrinka aad u galo. ninkan inta uu joogo Washington Netanyahu la leeyahay in meesha lagu qabto oo la yiraahdo war arrinka meel saar caawa la balamiyo. marka caawa aqalka cad ay ballan ku leeyihiin halkaas lagu qaabili doonaa qoysaska dadkooda lagu haysto Gaza ee Yahuudda ah. kadibna waxay la kulmi doonaan Netanyahu iyo ragiisa. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay arrinka telefishinka la yiraahdo 12 ayaa wuxuu sheegay qoysaska dadkooda lagu haysto Gaza ayaa waxa ay xaadiri doonaan oo ay tagi doonaan kulan ka dhici doona aqalka cad. waxaana la sheegay inay la kulmi doonaan mas'uuliyiin dawladda Mareykanka ka tirsan aqalka cad caawa ayaa kulanka dhici doona. kadib waxay is arki doonaan Netanyahu oo isaguna Washington ku sugan. haddaba waxay la socon doonaan dhaqdhaqaaqa xabad joojinta la sheegayo 60 maalmood 10 maxbuus ee la sii deynayo. iyagu waxay doonayaan in dhammaan maxaabiista la sii daayo dagaalkana la joojiyo. marka hawshaas halkaas ay maraysaa iyaduna baashu marka waa dhiinka maqli jirtay meeshii ugu kulleeday maraysaa. nimankii muqaawamadiina nagtay wax ku hayaan maanta askariga waa ka baxsaday waxa ay maanta ay rafteen oo ay yiraahdeen sidee ku dhici kartaa waa yaabaysa wax kasta idinku qaadatay in keentaan ayday leeyihiin. askariga inta kulleetiga qabteen saas iyagoo u haya ayaa haddana dhibaato kala dhacday oo marka meel walba looga yimid asagii inta dileen wixii ka qaateen marka ka soo tageen. laakiin waxay wacad ku mareen maalmaha soo socda nimanka kuna waa jabayna inay saas u soo furan doonaan. haddaba waa arki doonaa wixii warar soo kordha barnaamijka caawina inta ayaan ku soo gabagabeynaya asxaabay meel kastoo aad joogtaan barnaamijka la galay oo share garay hadda cusubtaan subscribe-ka YouTube-ka hakay loobin Facebook-gana follow garay barnaamijkana comment iyo fariin waxaad haystaan noogu soo qora qaybta fariimaha inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo.